الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحين سيدا كتاب مختصر منهاج القاصدين كارهان وحين سيدا دميي مالك iyo waxyaalaha ku tacaluqa marka uu fiican yahay hadii dariiq sax loo adeegsado iyo mararka dhibaatada iyo dambiga iyo xumaanta uu keeno hadii si xun loo adeegsado baqaylnimada iyo xirsiga qofku adduunka aad u jecel yahay iyo tamaca dadka waxooda la damaaciyo iyagoo xumaanta ay leeyihiin ayaan ku soo dhex jirnay ugu dambeyn waxaa inoo soo bilowday baabka bayaan cilaaj xirsi wa tamaci cadayn la cadaynayo xirsiga ama dadaalka adduunyada lagu dadaalo iyo tamacbanida siyaalaha loo daweeyo. maanta waxaynu gelaynaa faslun fi luzumi alqanaacati liman faqada almaala. fi luzumi qanaaca in uu laazimo liman faqada almaala qofkii xoolihii waayey, qofkaan xoolahayn in laga rabo faqrigiisa inuu ku qanacsan yahay iyo miskiinnimadiisa aan waxba hayn ama wax yar hadduu hayo xataa wax yar inuu ku qanacsan yahay qofkaas oo aanu adduun kale iyo cid kale waxa ay hayso indhaha aanu u taagin. yanbagii liman faqada almaala an yastacmila alqanaaca, waxaa habboon buu yidhi qofkii xoolaha waaya inuu adeegsado qanaaca, faqriga inuu ku qanaco ama wax yar hadduu hayo wax yar inuu ku qanacsan yahay kamaa dakarnaa sida aynu soo marnay. qanaacaduna waa qaninimo oo xadiis saxiixa waa tii nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laysat alghinaa kathratu alcarad, qaninimadu ma aha xoolo fara badan oo qofka ilaahay siiyo, walaakina alghinaa ghina nafs, laakiin qaninimada dhabtahay waxa weeye qofku naftiisa inuu qani yahay, macnaha waxaa ilaahay uu siiyey haba yaraadeene inuu ku qanacsan yahay oo ay ku filan yihiin oo adduun kale indhaha aanu u taagin. waliman wajadahu marka liman faqada almaala meeshuu yidhi qofka xoolaha waaye keliya ma hayan, xataa qofku hadduu wax yar hayo wixii uu hayo waa inuu ku qanacsan yahay. waliman wajadahu qofkii xoolaha helayna waxaa u habboon oo macnaha waajibka oo xoolaha ilaahay siiyo an yastacmila asakhaaa, inuu isticmaalo deeqsinimo, waxa uu hayo inuu wax ka bixiyo oo qofkuu deeqsi noqdo ayaa laga rabaa. haddaadan waxayn la-aanta ku qanac, haddaad waxaysidna wixii ilaahay ku siiyey wax ka bixi oo deeqsi ku noqdo. iyo wal iithaara, dooritaan. iithaarku waxa weye qofku wixii isagoo u baahan cid kaloo baahan hadduu arko naftiisa inuu ka qadiyo oo cidda baahan uu siiyo. wastinaaca almacruufi, iyo macruuf qofku wanaag inuu sameeyo oo dadka ixsaan u sameeyo, wax allaale wixii xoolihiisa dadka macnaha ugu qaban karo qofku inuu ugu qabto wanaag. fa ina asakhaaa akhlaaqu lambiyaa, sakhinimada ama deeqsinimadu ambiyadii ilaahay dhaqankooda wey. ambiyadii ilaahay waxaa dhaqan u ahay deeqsinimo, waxba ma dhigan jirin. nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam waynu ognahay waxba lagama dhaxlin, wax alla wixii gacantiisa soo gala waa bixin jiray nabigu sala allahu calayhi wasalam. wa huwa aslu min usuuli alnajaah, deeqsinimaduna waxay ka mid tahay oo asal u tahay waxyaalaha lagu badbaado, waa asal oo ka mida min usuuli najaah, badbaadada usuusheeda asal ka mida weeye. waxyaalaha lagu badbaado qofku uu ku badbaado aakhiro waxaa ka mid ah deeqsinimada. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، جابر وحال وري والنبي كوري صلى الله عليه وسلم أنه قال إني قال جبريل عليه السلام، ملك جبريل أيا وحيري قال الله عز وجل إلهي وحيري هذا الإسلام دين، إسلام نمض ودين ارتضيته لنفسي، نفط إذا أن رالي ونغضي. دين الإسلام هو دين نفط إذا أن رالي ونغضي بإلهي سبحانه وتعالى، ومعناها دين تددكو إن إلهي كعابدان أن رالي ونغضي. ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، دين تاسنا ومصو بضوي deeqsinimo iyo dabeecad wanaag mooy. macnaha diinta islaamku waxay u suubataa oo kaliya qofka muslimka inuu yahay deeqsi isla markaana inuu yahay qof dabeecad wanaagsan. fa akrimuhu bihima, diinta labadaas ku karaamay, oo haddii diinta ilaahay idin siiyey labadaas ku karaamay oo ku sharfa.
ما صحبتموه معناها deeqsinimada iyo dabeecadda wanaagsan ما صحبتموه انت الدين تاس صاحب لته حديثك أصلها ما سقنا بل وموضوع باليري لكن معنيه ساعة الموضوع صحبه إلى هذا وجملة هراء الإسلام الدين تضيته لنفسي القرآن كما إلهي كشيغي ورضيت لكم الإسلام دينا دين تكريو ددك إلهي رالي وغيه إن إلهي كعابدان دين إسلام كوي سيدو كله سخينمada iyo dabeecad wanaagu iyaguna usuusha diinta kamid yihiin waxyaalaha Ilaahay loogu dhawaado kuwa ugu fadliga badan bay kamid yihiin oo qofka muslimka ah aanu ka maarmi karin oo adduunkiisa aakhiraysa qofku ugu baahan yahay laakiin xadiisku lafti ahaan ma sugna culimada qaarkoodna waa mowduuc bay yiraahdeen وفي حديث آخر حديث كلا واحد كسرنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يري تجافوا عن ذنوب السخي قفك ديقسيغا ذنوبتيسا اسكا عفي معناها قفك ديقسيغا عندو دنب كدعو اما ايد idinka galo iska cafiya iska saamaxa faraha ka qaad tajaafi waa cafis ee qofka macnaha waa tasaamix in faraha laga qaado qofka la iska cafiyo qofku markuu deeqsi yahay ذنوبته uu galo ama eedu idinka galo macnaha iska cafiya faraha ka qaad fa in Allah akhadha bi yadihi kullama athara maxaa yeelay qofka deeqsiga ah Ilaahay baa gacantiisa qabta markasta oo tuunto roodo markasta oo kharad ku dhacaba Ilaahay baa gacanta qabta Ilaahay baa badbaadiya maradii qofku deeqsi maradii yahay qof deeqsi ah xadiiska laftigiisu waa dhaif waa ka laakiin haddana qofka hadduu wax bixiyo hadii waxyaalaha lagu badbaado ay kamid tahay deeqsinimada iyo wax bixintu وفي حديث آخر waxa ku sugnaa الجنة دار الأصفياء جنة ودارت ديقسيالك dadka deeqsiyalka ah jannadu gurigooda way wama jibila waliyullahi qof wali ilaahay ahana laguma abuuro dabeecad loogama dhigo illa ala sakha deeqsinimo iyo waxka xadiiska laftigiisu waa dhaif oo xadiis sugan ma aha macnihiisuna waxa weeye jannadu waa guriga ay degaan dadka deeqsiyalka ah mana jiro qof wali ah oo wali ilaahay ah illa bas waxyaalaha waliga lagu noqdo waxa kamid ah deeqsinimada illa ala saqa qof kasto wali ah ilaahay wuxuu ku abuuraa deeqsinimo marka deeqsinimadu dhinaca kale waxay kamid tahay waxyaalaha ilaahay loogu dhawaado wali hadii qofka kullu man kaana mu'minan taqiyan qof kasto mu'min ah oo ilaahay ka cabsada waa wali وليغنا waxa lagu noqdaa qofka Ilaahay kitaabkiisa iyo xadiiska nabiga oo saxiix ah sallallahu alayhi wasallam qof inuu ku dhaqmo diintu inay hogaamiso wixii Allah iyo rasuulkiisa ay farayna inuu la yimaado wixii laga reebayna inuu ka haro ama wali dadka qaarkiis sida walinimada u yaqaaneen inuu qof adduunka wax ka maamulo Ilaahay wax la wadaago wuxuu doono bixiyo oo arintaasi waa aqeedo xumo weeye dib badan bay qofka u keeni kara adduunka iyo aakhirada quraanka ilaahay ku sheegay ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladheena aamanu wa kaanu yattaqun labadaas rugni ayaa wali lagu noqdaa aqeedo saxiixa iyo cabsi ilaah وفي حديث وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال وحير أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي وحيري إن بدلاء أمتي أمضى إذا كود اسبدلاء لم يدخل الجنة جنة كما قلان بعبادة عبادة بضان ولا بصيام يصوم بضان ولكن دخلوها جنة وحيكو قلان بسخاء النفس ديق سنمو حق النفط وضعه نفط وضد ديق سيالة إليهين وسلامة الصدر لابط وضدك مسلمين تأيني أحارا تهي ولابطوا المسلمين تأيوا عافمات وتوقفنا عقدد آني مقابين والنصح للمسلمين يددك مسلمين إني داعد إيهين وأي نصيحة إيوانا إيه داعد نمو إني يددك مسلمين تأكونا رقما حديث قال تكيس هو ضعيف لكن معنيه يسوء محام كورا علماء إن بضرة كما دوحي يعني واصح كلمة لكن إن بدلاء أمتي بدلاء waxa loo sideeda riwaayaad baa jira ku soo arooray budalaa iyo nujabaa iyo aqtaab iyo dhammaan riwaayaadkaasi
ma sugna. culimada qaarkood qaar baa tasxiixiyey, laakiin culimada muxaqiqiinta waxay yidhaahdeen hal xadiisoo ka sugan ma jiro. laakiin maadaama axaadiis alfaada warata nabiga laga wariyey calayhi salaatu wasalaam, dad badan baa ku fidnoobay oo bedelada iyo rujabada iyo waxaan ku yidhaahdaa aqdaabta iyo waxay u qaatay inay yihiin dad maamulka adduunyada wax ku leh, ilaa xataa xaqii rububiyada oo ilaahay uu lahaayo adduunkan ilaahay inuu abuuro isagoo u maamulayo ay wax ka siiyeen. waa ka bedelaa marka kelimada waxay sax ku tahay markii qof ilaahay yaqaan oo weli ah uu geeriyoodaba booskiisa mid kale baa ilaahay keena, oo waa jamcu badel, mid kale booskiisa ilaahay ku bedelaa oo ilaahay uu keeno. macnaha dhulku khaali kama noqdo qof weliya inuu joogo mooye mar walba. weliguna haddii soo sheegnay aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun, waa qof caqiida saxiixa laga helay, ilaahayna ka cabsanaya si dhab ah oo cibaadada ilaahay u go-ah. waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtii nabigu awliya ilaahay bay ahaayeen. dadku hadba waxa welinimadooda ay ku kala badan tahay waa taacada ilaahay iyo sida ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga loogu kala dhaqmo. waxaa dhici kara dad badan oo awliya ah haddana way kala sarreeyaan, oo qof walba caqiidadiisa iyo camalkiisa qofba heer buu gaarsiisan yahay. ummadda nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam kadib abubakar ayaa darajada ugu sarreysa haystay oo ugu fadli badnaa ummadda. asxaabtii sidoo kale khulafaa raashiduun, dadkii asxaabtii nabiga jannada loogu bishaariyay calayhi salaatu wasalaam, kulli awliya ilaahay bay ahaayeen. marka wuxuu yidhi ummadayda kuwa hadda isbedelaya jannada kuma galaan cibaado badan. cibaada waxaa loo jeedaa macnaha waa sunnayaal badan iyo soom badan oo sunno ah. faradka laga hadli maayo, qof aan faradka tukan haddii isagu waa ku daayo dee meel daran buu ka dhaca. macnaha sunnayaal badan iyo soom badan iyo jannada kuma galaan. laakiin jannada maxay ku galaan badanaaba bisakhaai nafsi, naftooda deeqsinimadii. dad deeqsiyaale bay ahaayeen oo wax allaale wixii soo galaa dadka wax ka talo bixiya. wa salaamatu sadri, qalbigoodana wuxuu ahaa dad uu caafimaad qabo. salaamatu sadri waa qofka qalbiga xaaran, cidna dad uma hayo, cidna waxuma qabo. waa kan iyo wanusxu lilmuslimiina, dadka muslimiinta ah in daacad loo noqdo. qofka muslimka qofku inuu daacad u yahay oo khayrkana uu la jecel yahay. nusxigu waxa qofka muslimka khayrka inaad la jeceshahay, dhibtana aad la necebtahay. haddaad aragti isagoo wax si ka yihiin markaas inaad u naseexaysid oo si daacada inaad wax ugu sheegtid. وفي حديث آخر حديث كلا وحا كسغنا عليكم باصطناع المعروف، korkiina waxa ah waxyaalaha macruufka wanaagsan oo dadka anfacaya inaad sameysaan ku dadaal. فإنه يمنع مصارع السوء، maxaa yeelay arintaasi waxay hor istaagtaa oo qofka u diidaa, qofka macruufka dadka u sameeyo waxa wanaagsan meel xille ilaahay inuu dhigo, si xun qofku inuu u dhinto ayay u diidaa arintaas. xadiis kale oo lafdi ahaan u dhow ayaa sugan, laakiin lafdigan culimada qaarkood waxay yiraahdeen daciif wey. waa ka xadiiskaas wuxuu ahaa masaanicu wuxuu ahaa istinaacu almacruufi taqi masaarica asuu, oo kama qaala sala allahu calayhi wasalam. qofku waxa wanaagsan dadka inuu u sameeyo waxay ka ilaalisaa meel xille qofku inuu ku dhaco. culimada qaarka waxay ku fasireen inuu dab ku dhinto, inuu gubto, guri inuu ku dumo, maxaa yeelay si kaloo xun inuu u dhinto ayaa laga ilaaliya. waa kan sidoo kale riwaayaddu waa sii socotay waxyaalaha muhlikaadka ah iyo qofka dhibaatada ugu sugan ayaa ilaahay kaga ilaaliya subxaanahu watacaala. si kastaba ha ahaatee qofku dadka hadduu macruufka u sameeyo, ixsaan u sameeyo, dhaqaalayo dadka u roon yahay, ilaahay baa ilaaliya subxaanahu watacaala. waqaala ibnu simaak ninkaas salafki ka mida wuxuu yidhi cajibtu waxaan la yaabay man yashtari almamaalika bimaalih, qof addoomaha kusoo iibsada xoolihiisa. addoomaha macnaha dadka ah ayuu xoolihiisa kusoo gata. kayfa laa yashtarii, sida aan ugu iibsanayn qofkaas alaxraara, dadka xorta ah, bimacruufihi wanaagiisa usan ugu iibsanin.
macnaha adoomahana xoolaa lagu iibsadaa way dadka xorta ana macruuf baa lagu iibsadaa macnaha waxa weeye qofka haddaad wax siisid oo dhaqaaleysid adoom ku noqonay si kastoo ku nabca waa ku jeclaanay waxa rabtid ayaad ka helaysaa marka waxaan la yaabay inuu yiri dad xoolahooda adoomaha caadiga ku gata oo dadka xorta ah macruufkooda aan ku iibsanay marka adoo aan wax bixin baa laga yaabaa gacan wanaagsan iyo af wanaagsan iyo dabeecad wanaagsan dadka markaad kula dhaqantay dadku waa iska ka raacayaan adeeba adooma ku noqonayaan dadkiiyo ku rabaan oo iska ka jecel yihiin rabaan inay kula joogaan waxay kula qaban karaanna ay kula qabtaan wabillahi tawfiiq sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in